waxgaradka ka soo jeeda gobolada dhexe ee Soomaaliya isla markaana ku nool wadanka Koonfur Afrika ayaa walaac xoogan waxa ay ka muujiyeen dagaalada maalmihii ugu dambeeyay ka socday deegaanka Dhagtuur ee gobolka Mudug. ganacsatada iyo culumaa diinka ka soo jeeda gobolada dhexe ee Soomaaliya ayaa sheegay inay aad uga xun yihiin dagaalada dhiigga badan ku daatay ee ka dhacay deegaanka Dhagtuur ee gobolka Mudug, sheegana inay dagaalku sababi karo dhimasho iyo dhaawacyo barakac ku yimaada dadka rayidka ee la daala dhacaya abaaraha ka jira koonfurta Soomaaliya. haddaba waa kuwan qaar ka mid ah waxgaradkani oo ka hadlaya dagaaladani. iyo baaq ahaan waxaan ugu diraynaa in ay dagaalka joojiyaan, ayna maslaxadooda fiirsadaan. waa dad wada degan qayb iyo eeyna hal meel ku wadaagaan, ayna ku fiican tahay inay maslaxadooda ka tashadaan, ayna nabad ku wada deganaadaan. nabad la'aanna wax ka imaha male. waan ka xunnahay arrinta meesha ka dhacaysa, aad ayaan ka xunnahay boqolkiiba boqol. waxaan ugu baaqaynaa dagaalka inay joojiyaan, nabadna ku bedeshaan. sidoo kale waxaan qalnaa inay isku dagaalayaan ceelbiyood. ceelbiyood waxaa ka qaalisan dadka meesha ku dhimanaya, hal qof ka qaalisan, laba qof ka qaalisan, iyo dadka kale ka sii badan meeshana ku dhinteen. waxaa ka qaalisan maalka iyo dhibaatada meesha maalka lagu dagaalamaayo. waxaan codsanaynaa dadka maalka ku bixinaya dagaalada in ay ku bixiyaan dhinaca aslaaxa iyo nabadgelyada. marka waxaan baaq u diraynaa ummadda Soomaaliyeed ee ku nool meesha dagaalku hadda uu ka socdo ee Dhagtuur in tanasulaad la sameeyo, in xabadda la joojiyo. xabadu xal noqon weydi. ugu dambeyntii waxgaradkani ayaa ugu baaqay maamul goboleedyada ka arrimiya gobolada dhexe ee Soomaaliya inay kala dhex galaan beelahani walaalaha ah ee ku dagaalamaya deegaanka Dhagtuur ee gobolka Mudug. Ismaaciil Cabdulle Sabriye, TV-ga caalamiga Universal, Cape Town.